anigoo ah caaqil Yuusuf Dhaqane Kadiye Yuusuf Ganay waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo yar oo ku saabsan Jubbaland waxa waay Jubbaland gobolkii Jubbada Dhexe wax badan waxa haysta cadow gacantii dadkii lahaa way ka maqan tahay maxaan ku dhahdaa 13 sano ilaa 16 sano ayaa waxa haysta cadow baa haysta cid oo maqan oo maanta xoreynaysa ma jiro cid ku tala jirta ma jiro cid maanta u taagan oo mas'uuliyadda sheeganaysa oo le Jubbada Dhaxan wakiil u ahay ama mas'uul ka ahay ama madaxweyne ka ahay ama wasiir ka ahay ama xildhibaan u ahay oo u hadlayso oo le waan xoreynay ma jirto waxaan rabaa marka hadda meesha la yiraahdo Baardheere waxaa laga furay saldhig ciidan nimankii furay saldhigaas waa bogaadin hayaa waayo waa dad walaaladeena Baardheere waa magaaladaanadii waa magaalada maxaan ku dhahdaa aan ku abtirsano waa taan ka soo jeedno haddii saldhig laga furay oo meesha la yiri kaala ee dalkii aan xoreynay Baardheere waxay u jirtaa saakow maxaan ku dhahdaa 80 kilomitir bay u jirtaa Bu'aalana waxay u jirtaa 140 bay u jirtaa kilomitirka inta dhan meesha u jirta haddii aan laga xoreynaynin maxaan ku dhahdaa Jubbada Dhexe oo maxaan ku dhahdaa aan laga xoreynaynin Kismaayo dadka joogana inay xoreeyaan aysan rabin waxaan qabaa anigu dadka ku abtirsada Jubbada Dhexe base aan ahayn base-ka Baardheere oo u furan inuu jirin cid alaale cid ka naxaysa oo doonaysa dalka in cadawga laga kor qaado oo doonaysa dadka la gumaystay in gumaysiga laga kor qaado oo doonaysa dadka dhibaataysan in dhibaatada laga kor qaado waxaan qabaa Baardheere meel aan ka ahayn oo laga xoreynaya meesha ma jiro waxaan rabaa inaan u sheego dadka oran haya Baardheere dad baa kaga soo duulaya Jubbada Dhexe Baardheere dadka Jubbada Dhexe kaga soo duuli waayo beesha maanta beesha kale ee Jubbaland colka la waayo beesha la dagaalami waayo soddon iyo dhowr maxaan ku dhahdaa qabaa'il ayaa daga Jubbaland qabiilka la colka waa ke ma awrmada ogaadeen kuumada la col ah ma gaal jecel baa kuumada la col ah ma dirta koonfureed baa la ma Marixaan baa la cid la awaay hadii Baardheere dadka degan ee maxaan ku dhahdaa dad col la yihiin maxaa siyaasiyiinta maxaan ku dhahdaa ka soo jeeda gobolka Gado kuraasta maxaan ku dhahdaa Jubbaland kuwa ugu muhiimsan maxaa siiye wasiirka arrimaha gudaha maxaa siiye kan amniga maxaa intaasoo mas'uuliyada ka siinaya hadii col la yahay ma meeshii inta ma wixii la rabaa loo dhiganay hadduu nin siyaasi col la yahay qabaa'il col ma jiro dadka Baardheere degan waa walaalahana Baardheere waa dadka anagi baa degan annaga iskale cid nooga nasab sheegan karta ma jiro maxaan ku dhahdaa waa magaalada aan ka imaanay cid naga rartay ma jiro base baana laga sameeyay base-ka ayaana laga xoreyn doonaa Jubbaland waxaan qabaa anigu ninka madaxweynaha ka ah Jubbaland maxaan ku dhahdaa Dhobley Jubbaland baa laga xukumaa afmadow Jubbaland baa laga xukumaa meesha kale hoos tagta ma jiro waxaan ogahay Dhobley wuxuu u magacaabay degmo markuu u magacaabay maxaan ku dhahdaa degmadii taysiilaadka ilaahid miyuu sameeyay iskuul ma ka sameeyay guryihii degmadii ma dhisay kuwa caafimaadka ma dhisay ma uun dhisin garoonka Dhobley wuxuu xidhan yahay 10 iska rogo oo maxaan ku dhahdaa hadii lagu shubo carakaawa ma xidhmeen cid maanta Jubbaland dhihi karta madaxweynaha ka ahay ma jiraan qabaa anigu waayo madaxweyne ninka wuxuu ka yahay Kismaayo ninka wuxuu madaxweyne ka yahay Kismaayo ninka wuxuu madaxweyne ka yahay biyaha madow ee badda cid kaleeto oo uu ku matala ma jiro cid uu u maqan yahay ma jiro markii cid isku soo qaban qaabiso ay dhahdo Jubbada Dhaxan xoreyni waxa loo yeerayaa kuumada wuxuu noqday mididan galka marna laga bixiyo marna la geliyo noqday kuumada wuxuu noqday wax la adeegsado oo loo adeegsado dad kale siyaasiyiintiisa baa loo adeegsan hayaa waxgaradkiisa baa loo adeegsan hayaa caaqiliintiisa baa loo adeegsan hayaa salaadiintii ee lahaayeen maanta beeshan ku abtirsatay anigu ka soo jeeday ee cawliyahan salaadiintii ee lahaayeen ugaaskii ee lahaayeen Axmed wuu ka eriyay Kismaayo sidoo doonu ka sameeya kuwa cid ay u matalaan aan jirin buu ugaasya ka dhigtay kuwa meel ay ka imaadeen aan la aqoonin buu ugaasya ka dhigtay kuwa cid ay u hadlayaan wakiil ka yihiin buu ugaasya ka dhigtay cid ay matalaan ma jiro meel ay u maqan yihiin ma jiro wax laga sugahayana ma jiro anu marka waxaan qabaa oon u baaqahayaa dadka ku abtirsada Jubbada Dhexe saldhig baa la furay dugsi tababar baa la furay
ciidan baa la rabaa calaf baa la rabaa odayaal baa la rabaa odayaal dhaqan baa la rabaa inay meesha la tagaa la rabaa inagu danteena waxay ku jirtaa cid allaale cidii jubada dhexe maanta xoreynaysa danteena ku jirtaa inagu danteena waxay ku jirtaa cid allaale ama dawladaha dariska ha ahaadeen ama qabaa'ilada Jubbaland daga ha ahaadeen cid allaale cidii naga kaalmaynaysa maxaan ku dhahdaa xoreynta jubada dhexe diyaar baan u nahay haday tahay dawladda federaalka haday tahay kuwa dariska haday tahay beelaha aan dariska nahay haday tahay koonfur galbeed haday tahay Hirshabeelle cid allaale cidii naga taageeraysa waa u baahanay maxaa yeelay wax maamul aan leenahay ma jiro wax maamul aan leenahay ma jiro Axmed Madoobe 13 sano jooga yuu mas'uul ka yahay 13 ka Kismaayo mas'uul ka yahay garbaharey kama aho baardheer kama aho ceelwa kama aho meesha leeyahay balad xawa kama aho doolow kama aho xagee madaxweyne ka sheeganaya ma garanaya anigu meesha ka sheeganayo fiiri Axmed wuxuu xukumaa meesha leeyahay Kamboni ilaa ay wuxuu xukumaa qoonay inta u dhax waxaan salaamahayaa ka soo qaybgalayaasha shirka nabadoonada ugaasiyada siyaasiyiinta gabdhaha iyo saxaafadda intaas waa wada salaamahayaa salaan kadib war saxaafadeedka anagan iyo shirka anagan wuxuu ku saabsan yahay Jubbaland qaar ahaan hadda waxaan la hadli rabaa beesha aan ka soo jeedno ee cawliyahan baan la hadli rabaa marka hore beesha cawliyahan dal iyo dad meel joogan waan salaamahayaa salaan kadib waxaan leeyahay walaalayaal meesha aan ka soo jeednay u dhalanay Jubbada dhaxa waxa la yiri geelaadana igir kulahow tolkaana godob kulahow meesha godobta noo ah een leenahay ee deegaan u leenahay ee dad badan oo Soomaaliya walaalaheen ay nala degaan waa Jubbada dhaxa 17 sano saaxiibkeeda uu ka kaleeyay 17 sano 2006 bay nimankaas ku wareegaan oo qabsadeen ilaa iyo waqtiga hadda aan joognay intaasna waxa laga joogaa 17 sano ay dhan tahay inta ayada ah wax dawladda maamulkaas Jubbaland uu qabtay meesha ma laha beesha cawliyaha markan waxaan leeyahay qayb dadka Soomaaliyeed ee meesha ka mid ka ah deegaankiini intaas la haystay ceel uma qodno cidna uma maqna weeye waxaan leenahay dad iyo dad meel aan jirtaanbo meeshii laga xoreyn karo bu'aale bumun hadii la way bedelkiisa la meesha laga xoreyn karo waa meesha kale ee deegaanka dariska la ah ama Shabeelle ha noqoto ama Baayo Bakool ha noqoto ama Gada ha noqoto hada meesha ugu horeysa ee wanaagsan ee reer Jubbaland ay joogan ee u banaan ee jidaha noo banaan waxa weeyaan Gado meel kale oo laga xoreyn karo ma laha dal iyo dibadba waxa in leeyahay bu'aala ayaa idin baahan ka soo macnaha jaaliyada cawliyaha meesha jooganba ha ku soo diyaar garoobeen bu'aala si lagu xoreyn lahaa tan kale maamulkaas boorsada lagu wato ee walaalkeen Axmed Madoobe boorsada iskaga wato waxay yiraahdeen Marixaan baa idin ku soo duulahayo oo idin qabsanayo Marixaan ma Jubbaland ahayn Marixaan dadka Jubbaland dagameeyay ka mid ahayn wasiirada Jubbaland ma wax ku lahayn xildhibaanada wax ku lahayn waxa asaga waxa weeyaan deegaanka Jubbada dhaxa waa magaalo madaxda Jubbaland inta reer Jubbaland hadagi in aan hadda Jubbaland daganayn baa imaano maalgashan hadii maadii la imaado cid kasta ee hormar sameynaysa ay imaan karto jaamacadaha laga dhisanaya hormar baa lagu sameynaya hotel laga sameeyo wadooyin baa loo bixinaya Jubbaland oo idin madaxdeedii meeshaas ay wada imaanaysa saad ogtihiinba Garawe magaalo madaxda Boosaaso ahayd marka laga soo raro Garawe la geeyay ma qoyska deganaa Ismaaciil Maxamed Kariim aa dagay Soomaaliya waxba isku imaad waa la dhistay magaalo madax way noqotay jigjiga magaalo madax marka laga soo raray goday bay ahayd goday baa laga soo marka laga wareejiyo jigjiga la geeyay waa la soo wadatay Soomaaliya maxamed baa maal gashatay miyaysa ka mid ahayn bu'aale waa idin ku soo duulahay waa la soo danahay waa ninka inaan rabo horumarkiin aan rabin warkiisi way warka idin marka idin ma anfacayo Soomaaliya wax alla wixii sare Soomaali degan ama dibadda ka imaado imaado ka imaado cadaan iyo madow nin kasta hadii magaalo madax ay noqoto waa la maal gashanay waa la dagayaa beentaas waxa weeyaan beentii wadankiina in horumarka la idinku diidan yahay sababtoo bu'aal hadii magaalo madaxdaas hadii laga dhigo oo la tago oo nabad noqoto waxa weeyaan horumar baa la helayaa waxa la helayaa maalgashi baa la helayaa warshadaheeda la kicinayaa beeraheeda la habeynaya dhulkaas u barwaaqo noqonaya intaas oo idin kala dagaalamaya warka marka beenta ee banaanka lagu hayo Jubbaland ma ahe Kismaayo lagu hayo yay idin galin cawliyahan waxa ugu baaqayeen meeshooda tagaan taa cawliyahan baan leeyahay tan kale dawladda federaalka la hadlaya walaalkeen Xasan Sheekh Maxamuud miyaa hoyso wasaarihiisa Xamse ra'iisul wasaaraha waan idin amaanaya anigu dhaliil oo ma hayo Xasan Sheekh waa halka madaxweynaha ee dhiiraday Soomaaliya markuu soo galay shaab la dagaalamay gobolada dhax kala dagaalamay mudug kula dagaalamay muqdisho kula dagaalamay
kismaayana wuu imaado Jubbaland oo soo kacay Axmed Madoobe si wasiirkiisa u maadeen ciidan ma ku keenay xorey buu yiri Axmed Madoobe yaa u dhigtay isbaar u dhigtay madaxweynaha wuu mahadsan yahay Xasan Sheekh waana garab taaganahay waan jecelnahay waa madaxweynaha anaga wuu yimaaday ciidankiina waa u diiday Axmed Madoobe u diiday gadaan tagayaa buu yiri gadana ma tagi kartid buu ku yiri geela gal oo garoor ku gal ruuxa lama dhaho ruuxa wuxuu yahay baa lagu sheegaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku leeyahay meeshaas ilaahay bay u baahan tahay sugaysaa laakiin adiga ku sugaysaa ilaahay casiiska habay Jubbada dhaxay sugaysaa adiga madaxweyne u ah adiga walaal u ah adiga ehelkaaga sokeey ma jiro Axmed Madoobe ma laha adiga wadanka mas'uulka ah Soomaaliya kan dhalan doono iyo kan hadda joogo iyo intii dib dal idoo kuma wadanka Soomaaliya adiga madaxweyne u ah adayna ku sugaysaa xoreynteedan adiga laga sugayaa waana dadaasho waad qabatay ficilkeeda waad bilowday laakiin waa lagu hor istaagay waan ognahay wasiirkaad gaashan adiga Kismaayo tagteen ciidankiina waa lagu diiday inaad keento waxbarashadana waa lagu diiday mudane Xasan Sheekh Maxamuud mar labaad iyo mar saddexaad adiga oo mahadsan haddana waxaan raadiyahay wasaarahada mudane Xamza Cabdi Barre meesha ayada ilaahay ka sokow idinka idin baahan tahay waa la idinka sugayaa waan idinka rabnaa taasna dowladda madaxweynaha waxaan leeyahay Soomaaliya yaan leeyahay dowladda Soomaaliya federaalka ah tan kale waxaan la hadlahayaa beesha walaalaha aan nahay ee Mareexaan walaalayaalow walaalaan nahay waan is dhalnay ehel baan nahay waan wada degnaa col idin ma qabno annagana colno ma qabtaan saldhig haddaad noogu yeerteen oo tiraahdeen kaale waddankeena aan urtashanne sama wanaagaas waa idinka sugaynay waan idinka filaynay garab baan idin nahay beesha cawliyahana waxba ka maqneenna waa idin imaan beelaha kale oo nala degay ee walaalahan ama absamaha noqdo ama Soomaali maxamed kale ha noqotona waa idinku soo maqannahay gogosha hadda aad dhigteen hadal waxaa jira saxaal yiri hasha marka inay diido maqaarkeed meel xubay ka ursataa meesha la idinku ursanay waxaa weeye idinka oo gogol dhigin ya ciidan iska bilowdeen baa leeyahay gogosha hadda dhiga ciidankiinana wata gogosha nabadda ee Jubbaland idinka dhiga waan idin imaanaynaa wax alla wax garada oo Jubbada dhaxe degan ama digil mirafla ha ahaado ama sanbeesha kuma ha ahaato ama beelaha kale nala dega Jubbaland ha ahaato waan idin imaanaynaa samawadaha Soomaaliya baan anaga ayaan rabnaa dadka wadaag wada ee Soomaaliya wanaageeda jecel ayaan anaga la jecelnahay dadkaas aan soo walaalaha aan wax xumaan ma dhaxtaalo Jubbaland xumaan ma dhaxtaale nin siyaasad wato oo siyaasad gaar asaga u wato yaa dadka kala dilahayo taasna waan ka digtoonahay taana ma doonayno Soomaali waa walaal Soomaali wadanka ida iskale Soomaali waa iskale dadka degan waa walaalo weeye ayagana waxaan ugu baaqayaa wanaagaasaan ugu baaqayaa waxaan leenahay gogol ka wadana Balaariya tan saddexaad oo inaan ka hadlo waxa weeye walaalahay beesha kuumade waxaan idin leeyahay Axmed Madoobe inaa u heelisaan Jubbada dhaxna aad ka heelisaan godob bay idinku tahay inaad anagana naga heelisaan Axmed Madoobe oo khaladkaas galahayo oo sameeynayo oo joorfalkaas sameeynayo inaad garab u noqotaan anagana aan garab tirtaan oo macnaha Jubbada dhaxa aad garab tirtaan magaalada madax aad garab tirtaan godob bay noqonaysaa walaalayaal Jubbada dhaxa idinka iskale Axmed Madoobe ma laha dad kale baad ka mid tihiin garab nasiya meel alla meesha nabadeed ay gooshay fatan idinka inay maadaan yaan idinka suweynaa waxa intaas sii raacinahay oo kale ayadana lambarkayga afraada dawladda walaalaha aan nahay Kenya ee wadankan horaan u qabatay hadan ciidamadeeda ay joogan waxaan leenahay roolkii idin banaana wali waa idin banaayahay inta aad qabateen inteeda kale inaad gacan ka geystaan ma rabnaa haysa waxaan salaamayaa marti sharaftan ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan rag iyo dumarba siyaasiyiinta odayaasha dhalinyarada dhammaan waa salaamayaa salaan kadib shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa shir nabadeed anigoo Aburaala Nuur Doofil oo kamid ah odayaasha beelaha degan xiriyaha qaxootiga iyo dhadhaab beel kamid ah waliba beesha aan ka hadlahay aan kamid ahay matalo waa beesha Cawliyahan waxa weeye marka aniga oo kamid ah oo aan kamid nahay anagu beesha Cawliyahan aan kamid nahay qabiilada dega Jubbooyinka Jubbada dhexe dadka degan kamid ah waxaan marka shirku ku saabsan yahay oo soo dhaweynina haddaan nahay beesha Cawliyahan ee kamid ah beelaha dega Jubbada dhexe waxaan soo dhaweynina kuna faraxsanahay taageerina shirka iyo gogosha iyo abaabulka magaalada baar dheer laga abaabulay ee laga gogosha laga dhigaan taageerina sababtoo ah waxaan u aragnaa shirka inuu dantaanada yahay danta Jubbaland weeyo danta Jubbada dhexe weeyo danta Soomaalida Jubbada dhexe degta weeyo danta khaasatan qoyska aan ka dhashay dantiisa weeyo sidaa darteed baan u taageeriyaa una taageerina hadaan beeshaana waxaana marka beesha aan la hadlahayo anigoo afkooda ku hadlahaya waxaan beesha ugu baaqayaa
in ay ka qayb galaan shirka iyo abaabulkaas iyo gogosha la dhigay ee siyaasiyiinta Jubbaland ama Jubbada Dhexe ay dhigeen ee uwaasiyada Jubbaland dhigeen ee waxgaradka Jubbaland dhigeen oo qabiil walba leh qoys hebel la dhahaynin danna ay u wada tahay waxaan marka beeshayda ku baraarujinayaa in aan waxgaradkaanaga siyaasigaanaga qurba joogtaanada dhalinyaradaanada xooggaanaga xoolahaanaga inaan ka qayb qaadanaan beesha aan ka dhashay een matalo ugu baaqaya waxaana la yiri ninkii hooyada meheriyaba waa adeerka annagu haddaan nahay beelaha Jubbaland dega Jubbada Dhexe dega waxa dan noo ah ninkii Jubbooyinka iyo dalkan degna iyo beerahaanaga iyo dhulkaanaga noo qabta ama garab nagu siiyo ama nala dan ah Soomaalida waa isku wadan dad badan oo Soomaaliyeed wadanka dega oo Jubbada Dhexe dega dadka aan isku dantan nahay inaan isgarabsanno annagoo Soomaali ah annagoo dhul laga wada maqan yahay annagoo dhulkaanaga iyo beerahaanaga cadow wada haysto waxa weeye waxaan garab iyo gaashaan u nahay gogosha la dhigay waxaan garab iyo gaashaan u nahay ninka dhulka ka dhiidhiyay waxaan marka beesheeda ugu baaqayaa arintaasi ha fududaysanina yaan la idin war xumaynin yaan la idin sheeko xumaynin waxa weeyo nin aad ka sugisaan 13 sano iyo walaalkii Axmed Madoobe xukuuma Jubbaland anu waxaan islaahay nimankii dawladda dhexe haday daliilahay kuma raacsani hada koor bay niman u tageen ilaahay ku rooyay Jubbada Dhexe ka tagay ya madaxweynaha hore ee ka horeeyay ninka la Xasan Sheekh u tagay farmaajo waxa la yiri maxaa 18 gobol ee Soomaaliya gobolkan Jubbada Dhexe kaliya baa maqanaysay ku dhacday madaxweyne 6 warqadood buu ka soo bixiyay intuu qaanad soo jeediyay 6 warqadood ka soo bixiyay wuxuu yiri 6 warqadood barnaamij walba oo Jubbaland lagu qabto Jubbada Dhexe lagu qabto oo aan abaabulo on diyaar garayno dawladda dariska la kaashanay annaga wala kaashanay aan garansay diyaarinaba waxa hor istaagay Wiil Axmed Maxamed Islaam midkan ku xigay Xasan Sheekh kolku bilaabay dagaalka iyo dalka in la xoreeyo wuu ku talagalay Jubbada Dhexe inuu qabto wuxuu u yimid Kismaayo wuxuu yiri waxaan keenayaa ciidamada la keenay Eritrea dalkana hal la xoreeyo hal la qabto wuu diiday wuu hor istaagay waxaan markuu aragnay Axmed Madoobe Jubbada Dhexe in la qabto raali kama ah dhagtiisu intay maqasho waxaan isleeyahay wuxuu ugu nucbiyo Jubbada Dhexe la qabto saasama aan isleeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex arrimood ma ka hadlay aniga mid waa maamulka Jubbaland dadkii soo dhisay beeshan meesh fadhiday ka mid ahayd 1912 madaxa u saaraa laakiin maanta dadka isaga uu u damqan waayay dibidaamiyada lagu hayo iyo dhibaatada lagu hayo iyo isbitaal la'aanta ka jirta iyo waxbarasho la'aanta ka jirta ugu damqan waayay dalkoodii la haystay uu damqan waayay wuxuu noqday nin aan dadkii shalay soo doortay soo dhisay ee dawladdiisa soo dhisay wax u qaban waayay si adarteed beeshan maanta way ka tashatay mowqifkeedaan jeedinayna marka meeshan cawliyahan maalmahan shirar baa ka socday qabiilkan hadda meesha fadhiya cawliyahan waxay go'aan ku qaadatay inay maamulka isaga lagu khasaaray waxba u qabanin beeshi laga tashado talada ayada waxa lagu soo qaatay wadankii dhulka naga maqnaa dhulkaas oo ay haystaan nimankaas argixisada dhulka isaga ah ee Jubbaland aniga waxaan ugu baaqayaa waxaan taageeraynaa beesha cawliyahan iyo ummadda Jubbaland ugu baaqi inay ka qayb qaataan dugsiga la furay Baardheere kaas ma laga xoreyn karaa dhulka sababtoo waayo wax kale uu sugahay malaha ceel uma qodno cilna uma maqno waxa kaliya aan sabood gareynayno aan taageerayno aan rabno inaan taageerno oo annagoo dhan aan u kacno aan doonayno ummadda kale ee Jubbaland aan ugu baaqayno inay tagaan waa dugsiga beenta ay dadka qaarkeed sheegeen ay dhaheen meesha marreexan baa ku soo duulahay ogaadeenna waa been waxba kama jiraan meesha waxa jira ogaadeen baa jooga markaan gaar ahaan uga soo hadlay Reer Cabdillah jooga Cabdiraxmaan Raabiya jooga Qaalib baa jooga Cabdallah jooga ninkii nisaysan jiray Axmed Madoobe yaa jooga Cawliyahan baa jooga Korneel baa jooga
marka waxa weeye dadka meesha joogaan ee dugsiga jooga waa ogaadeen waa gaaljacal baa ku jira Mareexaan baa ku jira Sheekhaal baa ku jirta waa reer Jubbaland oo danahooda gartay ma aha Mareexaan ma aha dadka waxa loo tusaa siyaasadda inay Mareexaan ku soo duulahay dhul ogaadeen uu leeyahay ma aha taa ma aha horta saha ogaadaan meesha waxa degay ee dugsiga samaystay waa ummadda Jubbaland oo tashatay oo taladeeda isu geysatay yaa meesha degan inta markaan taa kaga baxo mid kale annaga waxaan sabood garaynaa kale dawladda federaalka dawladda dhexe kacdoonka ay isku istaagtay yaan garab taaganahay ayagaan doonayna aan garab istaagno ayagaan runaan dhulka anagana la qabtaan ayagaan doonayna inaan wax aan la tashano ayaga inaan wax nala qabqabiyaan baan doonaynaa wax kale oo noo maqan oo sugayna ma laha ayagana waxaan ku codsanaynaa inay gobolka Jubbooyinka dhulka maqan ayaga ay qabtaan bismillahir rahmaanir rahiim magacii waxaa la yiraahdaa Maxamed Aan Khaliif oo ku nool xariyaha qaxootiga Dadaab qaasatan xaga dheer maanta waxaan meeshan aan fadhinaa anagoo ah Coolyahan oo dhalinyaro leh odayaal leh haween leh anoo ku hadlayo codka dhalinyarada saddexda xare ee Dadaab waxaan qaadanay odayaasha anaga waxay qaateen marka waxaan rabnaa annaka codka aan qaadanay inay odayaashaana ay qaateen inaan qaadanay inayna ka muuqataan rabnaa waxaan doonaynaa dalkaanagii 13 sano gacanta ka maqan yahay 17 sano gacanta ka maqan yahay waxaan ku dhalanay Bu'aale Jubbooyinkan ku dhalanay waxaan xariyaha Dadaab joog kulli waxay ka imaadeen Jubbada Dhexe waxaan doonaynaa inaan dalkaanagii sidii ay laascaano dalkooda u qabsadeen inaan u qabsano waxaan doonaynaa waaskaanagii inuu soo istaago oo gacmahana qabto oo ninkaas yar dhalinyarada ah waaska laascaanood soo u istaagay oo noogu soo istaago waxaan doonaynaa dalkaanagii hooyo oo intaas sano ka maqnaa dalkii waxa jooga saddexda xare Dadaab waa dadka dalka ka imaaday maanta haddii laascaanood dadka jooga anaga ka badan waxaan rabnaa inaan istaagno oo indhaha shidanno oo dalka uu naga maqan yahay dalkeena aan qabsano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن عادوا السلام يا دمان الكيجا أضيالكيجا برشة عليان صوماليدا صحافة أنت ماشان فرد دمان آدم السلام يا سلام كدب وحن لا هاي وحن وقوا همي عن وقوا ودن كيجا يدول كيجا وعادوا تبايا marka inta odayaalkayga iyo dhalinyaradeeda ay ku soo hadleen ayaan raacsanahay intaas in ka badan oo sheegay ma lahan inta dumar ay ka qaadan karaan dadaal waan ka qaadanayna waana garab taaganahay hatta hadii ay noqoto inaan dagaal galno waan gali karnaa wax naga hor taagan ma laha